maalimihii u dambeeyay waxa soo baxay warar sheegaya in loogu jiro jagada gudoominimada xisbiga maxaafadka ee kulmiye haddaba si arintaasi telefishinka Star xog dheeraad uga helo waxa waraysi gaar TV-ga siiyay gudoomiye ku xigeenka labaad ee xisbiga maxaafadka ee kulmiye Axmed Cabdi Dheere oo warkaasi meesha ka saaray gudoomiyenimada xisbiga maanta arrin noo yaala waxa gudoomiyaha xisbiga ahna musharaxa madaxweynaha gudoomiye Muuse Bixi Cabdi waqti buu leeyahay shuruuc buu leeyahay xisbigu shuruucda uu leeyahay wax markay timaado ayaa wixii loo lanina yimaada arrin maanta yaala ama aanu ka wada hadalno ama dhexdeeda yaala aanu ognahay haba yaraatee ma jiro oo loogu jira waxa la leeyahayna dee anaga taasoo inta badan ma dhageysano ama TV-ga laga yiraahdo ama waxa laga yiraahdo wixii xisbiga iyaga shuruucdiisa iyo shirarkiisa golaha dhexe ama shirarkiisa la qabanayo waqtigeedu baanu qabanaa marka arrinkaas wax jira ma gudoominimada hadalhaynta soo noqnoqotay waxa la wareejinayaa marka musharax madaxweynaha helo mise waa gudoominimo imika la wareeji karo oo imika qof loo sii dhiibi karo musharaxuna ka madax banaan yahay gudoomiyina madax banaan yahay sida miya had iyo jaraale marba wixii imanayaba arrimaha xisbiga iyo shuruucdiisa aanu raacnaa marka shuruucdiisu markay timaado arrinkaas yimaado baanu de sidii aanu u dhigayno u dhignaa tii hore madaxweynenimada markuu musharaxa noqday gudoomiyuhu markaas aanu bilownay in la wareejinta ay iman doonto marka uu noqdo madaxweyne oo doorashadu dhacdo imaka waxa laale waxaanu isla soo qaadnay ma jirto gudoomiyaha xisbigu waa gudoomiye Muuse Bixi Cabdi ahna musharaxa arrin loo dhexda xisbiga ka jiraana haba yaraatee ma jiro gaasta kale gudoomiye ku xigeenka labaad waxa uu waxba kama jiraan ku tilmaamay in wax loolana oo jagadaasi hadda loogu jiro uu u dhaxeeyo wasiirka madaxtooyada Maxamuud Xaashi Cabdi iyo gudoomiye ku xigeenka koowaad ee xisbigaasi Mujaahid Maxamed Kaahin Axmed wasiirka madaxtooyada Maxamuud Xaashi iyo Maxamed Kaahin wax loolana ka dhaxeeya oo anagu dhexdeeda aanu maqalnay haba yaraatee ma jirto isku xisbi baanu xisbiga iyo xukuumadii sidii aanu wada shaqaynaynay wanaagsaneedna waanu wada shaqaynaynaa Rico Sar Maxamuud telefishinka caalamiga Star Hargeysa.